number 1 hada ugu tahay baashan ha diyaarsanin hana isticmaalin sababtoo ah waxba kuuma gasho inay wax ka haleyso ma aha Soomaali maxay wax u qabsan karin gabdhaha Soomaali waa la saacidan xalo saacidi waa naag dhamo la jarjaro waxaan ku dhahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام صحة ميل بادوك دافيد كجوكتينا ولاشين بدان إبراهيم وإذن له اسكسو نقد وناكسن intaas kadib waatana gabadhiin ayaantan la waayay waatana gabadheed ka dhuumatay hore waxa loo dhahay bini aadan iswaayay arina kala geysay maasha Allah waa arag sida quruxda badan ay soo raadinaysiin iyo guduceynaysiin hadii ahaaleed commentiga YouTube-ka hadii ahaaleed WhatsApp-ka hadii ahaaleed Instagram-ka aadan u mahadsantihiin ayaantan waxa ku mashquulsanaa horta waxay ahayd aniga marka hore qorsheyga wuxuu ahaa xaafada hooyo inaan ku dhalo oo joogo marka umush ka soo baxa kadibna xaafadeeda marka ku soo laabanayo inaan guriga iska bedelo waa gurigaas uu ugu yaraa ciriirin uu ugu ahaa marka waxa isla hadeer waa culusta guri raadis ma gali kartid guriga rabtidna insha Allah marka dhishid raadso marka saahili doonta aan ku guuri doonta adigoo dhaxmaran marka asxaabay yaan waxba war idin ku daalinin guriga hooyo 2 week marka joogo kadib waxaan helay gurigii aniga aan raadinayay mise isdhahay marka adiga dhishid gurigaas raadso daajidna ku guur guriga waa helay gurigan waxa waaye fillo cusub oo hadda farta laga qaaday ani waxa raadinayay wax hortay qofna uusan degin wax qurux badan ama guri qurux badan guri aniga hadhow yani dad ay ku ciyaareen mise ay wasaqeeyeen inaanan ani ka daba hagaagsanin waxa raadinayay wuxuu ahaa guri qurux badan waxa raadinayay wuxuu ahaa guri ma aragtay weyn oo waasac ah oo qabow waxa raadinayay guri hortay aanan qofna degin guri aniga ugu horeeyo oo furiis aniga qabsanaay alxamdulillah marka xaafada hooyo joogay adi hooyo xogaa isku dhowna hadeer waa helay waxa helay fillo ka kooban 5 qol qolalkiisa waasac ay yihiin fadhiga haba sheegin fadhiga hadeer ma idin soo duubi jirin waa aragteena fila sababta u duubi waayay waxay ahayd zaaid qolka ugu yar oo ku jira fadhiga ciriiriyo ahaa xataa ma lahayn meel aan wax ka duuban karo mise nalka waxa ku duubay dhigan karxtay ma lahayn laakiin ma sha Allah kan hadeer wuxuu leeyahay fadhi aad u weyn insha Allah video yaalno idin kaga soo sameey doona guriga totalna video idin kaga soo duubi doona sidoo kale wuxuu leeyahay 3 masqul sidoo kale tan qolalkiis aad u waaweyn yihiin ma aqaan wallahi wax oo yar macquul inuu ku jiro laakiin wax zaaid u yar ama kii hadeer ka soo guurayo kale taab ku jiro marka ayaan taas aan ka mashquulay guuritaan ay galay anoo ay ogtiin xaaladeedii anoo maaragtay iska culus aadan waxa sii galay jawi kale oo guuris ah hadeer videoga idin duubay waa habeenkii labaad kaliya ah seexdo ma sha Allah horta hore alxamdulillah wixii dhan way hagaagsan yihiin hooyo iyo habo yani habaryartay iyo maaragtay walaalahay guriga ila habeen ani waxa qabtay wax iska yar waaye ama waxa aan la sheegi karin ma fahanteen inta kale waa la qabtay kaliya aan hadeer waa iska imaaday waxyaabo yar iska toosii sida jikada kale inkastoo daal badan oo soo gurigan iga galin laakiin hadan waa dareemi kartiin hada guuris markii la xaaladeedii waan qiyaasi kartiin xaalad aan ku suganahay taas ay idin kaga mashquula gurigan waa idin soo duubi doona insha Allah haduu Ilaahay naftaas noo daayo oo raali ka noqdo idinkana aad u mahadsantiin ducadiin waa idin ka qabaa waxa idin kaga mashquulay ama ma aragtay idin kaga soo daahiyay boorsada intaas ahayd haddana waxaan bilaabeynaa inaan boorsadeen noo furo insha Allah waxa ku jiro yani saa wada aragna ani kulli waa ogahay idinka saa u aragtiin haddii ma aragtay wax aad ka faa'iididna fadlan waxa ka codsanaa inaad subscribe iyo like iyo saartid asxaabtaadan u share gareysid mid kale asxaabe ani boorsada hal boorsa ka dhigtay ma fahanteen maadaama qalin aan leeyahay alxamdulillah ma ogahay wixii iman karo laakiin Ilaahay iga haayo sida qeyr ku jiran Ilaahay waafajiyo marka maadaama qalin hadda aan ku tashanoonin oo caadi aan ku tashanayo hal boorsa ku dirtay alaabtii babyga uga baahnaa iyo aniga wixii maaragtay u baahnaan lahaa waqtigaas ma fahanteen inta kale tan had xaafadii waa kaga tagay laakiin inta shay daruuriga ah mise asdhihi karo waxa u baahanaysa inta istaal ku jirtid saacadaha deeta ama maalinta ku jirtid intaas u baahan kartaa isla inta ku dirtay marka laba qayb kale yihiin labadoodii qaybna waa in kala tusi doona annaku way waa in tusaa ku babyna waa in tusi doona insha Allah waa kana boorsada u jeedina fila boorsadan mar waa aragteen marka soo gadaayay anoo routine sameeynayo routinekiisna ku dhex aragteena fila ayadoo faaruq waxba ku jirin markaas
waxa ugu horeeya oo gacanteyda soo qabtay waxay ahayd shoppingka. waa ujeedina umaleynaa shoppingki waaye waa baano baby lotion iyo baano baby shampoo sidoo kale baby oil. shirkadan ma isticmaali jirin laakiin sida la sheegay shirkadan aad u fiican tahay tii kale oo dadka dhan wada isticmaali jirin taas waa laga deeriyay waa ogeedina umaleynaa marka aad u fiican tahay bal waa barooweynaa insha Allah. hadda saddexdan xaba gacanteena soo gashay waa creamkii waa shaambadii waa saliidii sidoo kale waxaa soo qabtay faasiliintan muhiim waaye kulley ina u baahdo macquul. sidoo kale waxaa soo qabtay xafaayadna waa xafaayad nuuna waxaa umaleynaa number 2 inay tahay number 1 malahan laakiin 2 yani 1 iyo 2 waa same say sheegayeen marka xafaayad nuuna waxaa kaga ritay inta 5 xabo ina u baahdo macquul marka ugu horeysa ayaga u xiraayaan laakiin way qurux badan tahay in isku tashatid sina qof ku tashadid ma markasto. xafaayadii waa tan waa waybiski waa ujeedina umaleynaa baashi looga tirtirayay ilmaha marka waa kana ayadana markaana qaate. sidoo kale bustahan basaliga nalka haya umaleynaa ma ujeedin ma arki kartiin bustahan waa binki ama basali waana bustaha maaragtay ilmaha looga soo bixiyo istaalka micnihii ama markaa meel uga dido kaleeto ada bustaha labiska la iska dhigay labiska ilmaha bustahoodii laawo laakiin waa kan maaragtay markaa soo bixiysto kaleeto aad kusoo qaadanaysid wuxuu leeyahay shiyeer iyo badhamo oo laisku xirxiro baakadkiisina idin tus waa jeclaa laakiin waa ka bixiyay boorsadan baakad miya qaadis ana boorso weyn inaa safar u socdo kaleeto marib inaa meelaha ku jiijiido kaliya inta daruurigii ah qaadanaa. bustahan waa fahanteena filaa. sidoo kale waa maryo ama dharbo saa u taqaaniinbo yani maryaha ilmaha lagu qabto mise loo dhigo waaye. hadeer anisaana mar waxaa umaleynaa maraa vlog soo sameynayo oo isku diyaarinta umusha waa ku aragteen ayadoo weli waxaa waaye waxaa soo qaatay haaf dirsinka haafkiisi inta badan dharka idin tusaayo waxaa ku gata jumla ahaan laakiin inta u baahan bisa kasoo baxsaday waxaana ku aragteen vlogii mar aan sameynayo isku diyaarinta umusha ahayd sababtoo ah ani markasta umusha markaa isku diyaarinayo xabad meelaha kama soo gid sababtoo waxaa ogaa inaa u baahan doono wax badan saas darteed waxaa soo gataa nus darsin marka kan nus darsinkiisa aad u badan yahay waayo bookiskan keliya hadeer afar mara ku jirtaa waxaa kasoo gatay bookiskan 3 xabo ah markaas waxay noqonaysaa 12 xabo ma fahanteen. sidoo kale waxaa noo soo baxay daaqili ujeedina umaleynaa daaqiligan maasha Allah aad u jeclaysta waxaa waa kii oo isku deyska micnihii lugaha lahaay gacmana leh gacmihiisa laakiin way furan yihiin gacmo dheero waa ma fahanteen. kan waa waayay asxaabi waxaa ka waayay jumla ahaantood waa u waayay 6 xabaar inaan ka soo qaato laakiin waa heli waaye kadib waxaa ka helay meelaha caadiga ama tafaariiqda halkan xabaan ka soo qaatay waayo jumladiisii waa waayay. sidoo kale oo jeedin 2 xabo daaqiligan waa kuwii garamada ahaa way furan yihiin hoosna waxaa waaye saan garbahan saanay uga furan yihiin kana sidoo kaleeto waxaa ku darsaday 2 xabo daaqiliyadan nus darsinay ahaayeen ayagana 2 xabo ka qaatay. sidoo kale weli daaqiliya socdo ina u baahdo macquul ina u baahan inuu 1 xabo ama 2 xabo kaga baahdo macquul laakiin markasto waxaa waaye ina isku tashatid wax ka qurux badan malaha. kan ujeedin waxaa waa 3 xabo daaqiliya midkaan waa cadaan midkaana waa madow maasha Allah madow aad u qurux badan yahay kana waa cream daaqiliyaasha marka waxaa ka dhigtay 5 xabo kuwa gacmaha leh oo 3 xabo ah iyo kuwa garanka ah oo 2 xabo ah iyo kuwa asagana isku deysku 1 xabo 6 xabo waa 6 xabo ka qaatay. waaw kana raadinayo kan waxaa raba asagoo buufsan inaa idin tuso
laakiin waa ka mashquul ayaantan maahano ayaantan waxaa guuris waxaa ku jira mashruuc kaleeto laakiin dharkan waxaa raba markaa dhalo insha allah in loo geliyo hadduu ilaahay naftiis noo daaya dhammaanteena noona soo duceeya waxaa raba inaan buufiyo ayaantan waa ka mashquul laakiin insha allah beri inaan buufiyo isku daya ama beri dambo waxaan ku buufi doonaa magac oo maaragtay ani aabaheeda oo bixinay insha allah laakiin taas waxay ka qurux badnaan lahayd markaa dhalo bisina aragtiin magaca iyo maaragtay dharkan insha allah sawradii iyo videona idin soo wadaagi doonaa sad kalena waa kan sad kale yani waxa ka wadaa bahashi kale loo xiraay kanna waa cadaan wax yar oo pinkiya soo gala oo meel dheer aan dhaweyn kaas waa buufina insha allah waa qaadana kanna waa qaadana midka ii noqdaan u xiri doona ama midka ku soo baxaayo aan xiri doona insha allah ilaahay naftiis noo dhaafo kan waa shukumaanka caadiga ilmaha markii loo qabay lagu tiraayo wow baashan runtii aad uga helay aadan u jeclaystay maxaa ka aragtiin waa saako qurux badan maasha allah aad u qurux badan laakiin waa garbago macnihi fanaanad kuma dhagano saanin ku imaatay surwaalkan quruxda badan way wadataa ayada kaligeed maahan tan waxaa kasoo qaaday 6 xabo yani nus darsina kasoo qaatay aad u jeclaystay waa kasoo tagi waayay haddeer ma u maleynayo markaa meesha tagay inay daruur ii noqonayso laakiin jacayl u qabo darteed waa isaga darsaday maxaa haray wow maasha allah maxaa aragtiin waa masaasadahan waxay ahaayeen adiga 3 xabo ka kooban yihiin hal xabo waa iska reebay waa kan ka weeyaa kan waa midkii ugu yaraa kan waa midkii dhexe kan kale tan saaska ugu weynaayo ahaa marka saaska ugu weyn aan u baahnay kan sidoo kale waxa waaye baasha maxaa lahaa beebeenta ciyaalka afka loo geliyo waaye asagana waa ku darsaday ma fahanteen waaye asagana waa ku darsaday ma fahanteen marka ani masaasadan sadkas masaasada tan kaliya ka jeclaa tan kaliya ka jeclaysta ilaahay amarkiisa midan aad u yar aad u qurux badan tahay ma aqaanin ani kulli dooqayga waa lawan xabo ku darsanaa macquul inaan u baahanin laakiin taxadirku iska fiican waxa u maleynaa qaybta babyga inay dhamaatay waan wada aragteen inta ii daruuriga ah inaan ka qaadanayo iyo wax yar oo iska dheeri ah marka wax kale tan inuu hoos ku jiro macquul waayo ana hal boorso bas iskugu geeyo moogtay haddii wax kale ka soo baxaana waa arki doontiin laakiin hadda qaybteedii yaa la galay qaybteedii inta saamarka waxaa iga soo horbaxay waa saako iyo jalbaab markii la dhahaan hadda waa dareemi kartiin maahan oo marka istaalka soo bixaysid waxaa la rabaa waxa soo xiratid baatigaa ma kasoo laabanay maayo istaalka markaa kasoo baxaan waxaa jecla ma soo xarakeenaya inaa kasoo bax ma fahanteen markaa galaayan sidoo kaleeto laakiin markaa galaayo baati iyo maaragtay dirac adi dhar nadiif oo markaas oo qurux badan oo carfaayo kaaliska aragan oo cilaansan oo waxaa ku dhahay tinta ii daban tahay aan jeclaa inaan gal markaa kasoo baxaayo yaa waxyaabo dhexdeeda soo saari karo ma jirto 9 bilood waxaa la ahaa useyl ahaa waa saaka iyo jalbaab insha allah marka istaalka soo baxaayo ugu talagalay inaan soo xirto inta ii dhig sidoo kale saaka iyo jalbaab markaa aragtid suunkina kama marno kan u jeedin waa suun baakadka maamadii ay gareebatay baakadka kor inta tusilaa naagtii oo xiran tahay laakiin maamadii gadiisa waxay u tirsan bala ka dhiganaa saas darteed ugu dhaafay ana bacdiga soo qaatay marka asxaabi suunkan saan ku sharxi kariya u maleena waxa ku qurux badnaa leed markaas anoo dhalay oo anoo yaan dharkayga wato inaa idinkaga kor xirto idin sharaxo qaarkiin waaba taqaanin qaarkan aqoonina ka wadaa waa kasaan waaye way jijiidmaysaa waxayna leedahay badhamadaas u jeedinay leedahay ama ilkahaas sidoo kale inta waxaa kaga jira wax caag camal oo yani caloosha ama marada ay ka samaysantay aan isku keenaynin ma fahanteen caloosha tag ee leedahay dhaqsiyan caloosha waxaa ku dhahay inaa jiim gasha camal iskugu aruuray ma fahanteen waxaa waaye marka umush laga baxaa rasaras iska dhigaa la rabo maaho
kuwan waxa waaye kan marka xiratid kuwan ku sii dhijinay waa ku sii kor dhuujinay xargahana u jeedin waa ku sii kor dhuujinay insha Allah marka dhalo waa idin soo wadaagi doona aan xiranayo ilaahay idin baashan aan soo baxday baashan waa taqaaniina fila inta hooyooyin kale fahmi kartaa inta hooyanimada ku cusubna iska fahma baashan daruuri zaid ku tahay waxa waaye baashin oo caanaha lagu lisaayo kule qofka markuu markaas dhalo ama maaragtay saacado ay ka soo wareegato dadku way kala yihiin dad waxa jira caano badan oo maaragtay aan xamili karin waqtiyada u horeeya ama isbuuc u horeeya uu xamili karin marka caanaha la saga kala yareeyaan unahan waxa cunug markaas dhashay hada caano badan ma cabi karo meesha isla ogeena ma xamili karto caano badan ma ahano marka inta ku barari lahaayeen isku xanuuni lahaayeen ku jiran lahayd baashan isticmaal waa la saga kala yareeyaa ma fahanteen meel fiican ku shubaada waxa dayacina marka ka miirtiin ama nuunaha siiya ducadeynina meel ya oo nidaam ah qurux badan hal wax xafido kaas soo uga dhamaanay kan u jeedin waxa waaye shower gel kan sidoo kale ka u jeedin waxa waaye burushkii qubeyska kan waa shower gel kan waa burushkii qubeyska kan haduu ilaahay idmo waxa ugu tala galay marka dhalo in maaragtay musqush marka galo biyo qandaca ku qabiisanayo kaleeto jirki lagu dhaqo jirki maanta dhan shahiidaya oo dhididka waaweyn ka imaaday in lagu dhaqo marka waa kaasa marka soo qabiisto iskala kicsido suunka dhacis ku siido soo labisatido baby soo qaata lagu soo qaado maxaa ka qurux badan ilaahay nabad nagu gaarsiiyo oo caafimaad qabnana kala keen kan u jeedin waa idin furaysid waxa idin tusaa yani hal xabaa idin tusaa وبدين والله سان واي halkii bacba laba xaba ku jirto baashan waa suufkan waxa soo gaday xidheefo u mushiisa markaas ku diyaarinayay markaas video waa duubay asagoo baakadkiis ku jiro sidoo kale wallahi markaas waxyaabo kale to aad muhiim u aha maadaama hooyo cusub ah way jireen gabdho badan soo gudbiyeen iga faa'iideen insha Allah videogan dhaxdiisa idin kugu sheegi doona wixii ahaayeen laakiin videogaas waagaas waxa waaye active kuma ahaan YouTube sidoo kale tan editing si fiican uma aqoonin marka editingkiisa xoogaa wuxuu ahaano sas darteed hawada ku cun videogi laakiin dad badan way ka faa'iideysteen oo markaas ugu xirnaa suufkan marka ay idin sharaxo waa suufkii naaska tusaale hooyo hadii caano badan leedahay suufkan aad u anfaca rajastiinka ay ka hoos xiranaysa wuxuu leeyahay wax yar oo sharoote ah rajastiinka hoostiisa ku dhijinaysa marka caanihi ma soo gudbaayo dharkaaga ma soo gudbaayo ama diracaaga ma qoynayo ma fahanteen anna hadeer kan ma ah mid hadeer soo galay kan saa idin sheega hadeer box weyn oo igu jira inta kaga baahna markaas waa ka isticmaal kadib ma u baahanin laakiin meel aan dhigtay oo waa xafitay sababtoo mar kale tina u baahan doona ogaa hadaan noolaha oo ilaahay nafis ii deena oo wad kale tiin ilaahay siinaa kan asagana meel noo dhig sidoo kale to gersliin kan marka soo qabaysto kale korka jacjacdo kale oo kale jacjac uu ka baabiina ma ahano yani waa saga baahday ina u baahdan waa laga yaabaa laakiin ina u baahanahayn waa dareemoyaabo kan waa vitamin E oo face wash ah ma sha Allah face wash kan aad u fiican yahay hadhow meesha saabuun ka raadin lahaa mise ka qaadan lahaa face wash tana qaatay sidoo kale tan jirkan waxa u qaatay shower gel xogaha si dhiman jooga kala fakanina wax badan ka faa'iideyna laga yaaba kabahan waxa waaye dadka maxay dhaan horta ila muran dacas camal oo nooyay anaga reer Soomaaliya daanahe waxa waaye dadka qaarna labisna uu yahay dacasna uu yahay labis marka ku dhaa aroos iyo waxa smeel in lagu aad maahan laakiin meelaha fudfudoo kale marka adeega cidda soo jeedka kale khudaarka soo gadanaysid marka meel inta dukaan inta gaariso kale taa hore loogu baxaa ma fahanteen iska barta mid kale tan reer Soomaaliya waa taqaaniin waxa man la baraayo oo kala wadaniyo kan waa u baahanahay oo madaxa iska gudufta kan waa u baahanahay markaas darteed u qaatay
sheeko way noo dambeysaa shay kaleeto aada muhiima noo dambeeyo insha allah nala joog. baashaan aa ujeediin maxaa waay colgate iyo burushkii. colgatekan burush asagaa wato laakiin burushkan kaleeta kusoo daray. sababta ugu soo dara sabab kaleeta maahan, maadaama hooyo i raaceyso qasab daruuri yani inaa waxaa laga yaabaa habeen madow in la qabto oo habeenkii meesha inaan seexdo subaxiina hadda wax lagu cadaystaa loo baahan soo maaha. marka saas darteed aa u qaadana ayadan ana u baahanahay hooyana u baahan tahay. intaan u gudbin kanna waa power bank baasha maaragtay keedka bateriga insha allah inta buuxsado qaadan doona. inta hadhow raadin lahaa press away iyo mobilka isoo jaajiray waxaa galish sirteeda gees ka dhigana mobilkayga soo ku jaajiray sana farxad iyo hambalyadina asxaabteeda la wadaagi doona insha allah. kan aa ujeediin waxaa waay dirac iyo gabsaarkiisa oo karisa. aniga I love gabsaar oo karisa oo ku dhintaa ma fahanteen. kalkan oo ujeedina umaleynaa kalkan kulli waa ka helay suuqa qash kaleeta idin tusaa ama idin siinaa qaabka toliinka xabadka looga tole. waa kan waa aragtiina fila xabadkiisa waxaa laga dhigay lastiig. marba waxaa hadaa umul isku diyaarinaysa mise hooyo isku diyaarinaysa oo hooyo noqonaysid alxamdulilah waa ahaa. alxamdulilah ilaah maadaas kale ilaahay ii dhaafo awlaadeeda haddana ilaahay nabad ha igu kala keeno. laakiin marka is diyaarinaysid maaragtay oo markaas aa isku diyaarinaysid beebi cusub waxaa qasaba markasta inaa naaska siisid. haddii ka waran aad soo tolatid afaaro oo xabadka ka yartah dirac dhammaa kor u qaadana mise hoosa ka jeexaya maya afaaraha sabangeey ahaayeen xaggaas naga geeya. waxaa ku dhahay baashaan diracyada tolanaysid ha ahaadaan bahal oo garbahooda ay weyn yihiin yani diracyo oo garbahooda ay weyn yihiin. sidoo kale tan lastiig ku jiro. lastiig wuxuu kaa caawinaa marka afaaraha soo bixinaysid nuunaa usoo bixinaysid maku dhibaayo adiga maku qabanayo asaga kuma dhibaayo. dirac kor iskagama qaadaysid dad ku dhow yihiin xataa diracna ma iska jeexaysid ma fahanta. marka taasuu kaa caawinaa. ani diracyadeeda saanaan ka wada dhigtaa markaa baby naas siinaayo. kan inta ii dhig waa hal joog. sidoo kaleeto kan waxaa waaye shaashlow. dharkan aan maaragtay idin tusaayo waxaa waaye dharkii aniga aagadaaya baatiyaal anaga cindigihiin anaaba gadabo ma fahanteen. marka meel kaleeto kama jarin baatiyaasheedii ka jaray asaa harqaan geeyey asaa waxaa ku dheh qoorta kal iyo laab saarib kasoo dhigta. kan waa shaashlowgii. kanna waa kariskii originaalka ahaa. asxaabi mida kaleeto qofkii u baahan baatiyaashan waa hayaa iga soo dalbada meelo kaleeta aadina soo dalbada. tan waa iska gorgorod. sidoo kaleeto gabsaar hadaa hal karisa meesha idinku tusa karis kaleetan waa kana gabsaarada xitaa waa gabsaarada aagadaaya aniga hadaa u baahan tihiin diyaar waaye ila soo xiriir lambarkayga waa haysiin ama qaybta hoose commentiga idin dhiga insha allah. gabsaarkana waa kana maasha allah cajiib aad u qurux badan yahay. qaxwi iyo waxaa waaye jaalo isku jiro ama cambe isku jiro waaye. marka labadaas gabsaar daruuri waa u baahanaa qasab hal gabsaar inaa kaga baahdo macquul. halka kaleetan hadda hooyaa ila socoto waa ayada u baahanayso. sidoo kaleeto arrimaha aarab inaan ka hadlo tan waaye afaaraha horta boorsa xagga naga geynaa suuq. afaaraha aarab inaan ka hadlo afaarahan waaye